Ma jimicsan kartaa haddii weli murqahaagu xanuunsan yihiin? Haddii aad ka soo kabato orod ama tababar miisaan culus oo jimicsi ah, waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso inay fiican tahay inaad sii waddo mise inaad nasato. Xanuunka iyo qalafsanaanta murqaha ee ka yimaada jimicsiga waxaa loo yaqaanaa delayed onset muscular soreness (DOMS). Badanaa wuxuu bilaabmaa 12 ilaa 24 saacadood kadib jimicsiga, wuxuuna gaaraa heerkiisa ugu sarreeya 24 ilaa 72 saacadood kadib. Caadi ahaan, DOMS wuxuu dhammaanayaa 3 ilaa 5 maalmood gudahood. Laakiin intaas oo dhan inta uu socdo maxaa la sameeyaa? Ma fiican tahay inaad jimicsato adigoo weli xanuunsan? Halkan waxaa cilmi baaristu ka tidhaahdo. Haddii aad rabto warbixintan oo kale fadlan guji subscribe si aad u hesho warbixina intaan ka badan ha iloobin inaad nagu soo biirto. Mahadsani. Maxay murqaha u xanuunaan kadib jimicsi? Markaad jimicsi samayso, murqahaagu waxa ka dhasha dilaacyo yaryar microtears. Jidhku wuxuu soo diraa dareere iyo nafaqooyin si uu u hagaajiyo, taasoo keenta barar. Bararkani waa qayb ka mid ah habka caadiga ah ee soo kabashada, wuxuuna gacan ka geystaa in murqaha xoog iyo ballac ku kordhaan. Laakiin bararku wuxuu kaloo kiriyaa dareemayaasha xanuunka, taas oo keenta inaad dareento xanuunkaas maalmaha ku xiga. Xanuunku wuxuu ka xoog badan yahay haddii aad jimicsi ku cusub tahay, aad samayso nooc cusub oo jimicsi ah, ama jimicsigaagu ku dhaliyo culays badan sida orod ama miisaan culus. Markaad joogtayso jimicsiga noocaas, xanuunku wuu yaraadaa. Ma tahay in murqahaagu had iyo jeer xanuunaan kadib jimicsi? Xanuunka murqaha waa wax caadi ah, gaar ahaan markaad bilowdo. Laakiin maaha calaamad muujinaysa horumar dhab ah. Waxay keliya sheegaysaa in jirkaagu la qabsanayo culays cusub, balse ma caddaynayso in jimicsigu ku dhisay murqo ama kordhiyey fayo-qabka. Tusaale ahaan, qof orod ku cusub wuxuu dareemi karaa xanuun kadib orodkiisa ugu horeeya, halka qof orod badan sameeya aanu sidaas dareemin, inkasta oo labaduba ka faa'iidaysteen jimicsiga. Marka murqahaagu xanuunsan yihiin, ma sii jimicsan karaa? Waxay ku xiran tahay ujeedadaada. Dhinaca caafimaadka, jimicsiga adigoo qaba DOMS waxyeelo kuu geysan maayo. Dhinaca waxqabadka, waxay dhici kartaa in xooggaaga iyo xawaarahaagu yaraadaan, ama xitaa isu dheelitirkaagu uu hoos u dhaco, taasoo kordhin karta khatarta dhaawac sida canqowga oo jaba. Haddii jimicsigaagu u baahan yahay xirfad iyo saxnaan, sida ciyaar kubadda koleyga, xanuunku wuxuu hoos u dhigi karaa waxqabadka. Maxaa ku saabsan maalmaha nasashada? Cilmi baaristu waxay muujisay in jimicsiga isku xiga, isla maalmo xiriir ah, iyo jimicsiga maalmo kala duwan aanay farqi weyn ka samaynin horumarka muruqa ama fayo-qabka. Laakiin muddo dheer, nasashada marmarka qaarkood waxay kaa caawin kartaa inaad diiranato oo aad ka fogaato dhaawac. Gunaanad. Jimicsiga adigoo murqahaagu xanuunsan yihiin waxyeello ma leh, laakiin waxaad dareemi kartaa daal iyo hoos u dhac waxqabad. Iska ilaali jimicsiyada halista u ah isu dheelitirka, sida boodbood xoog leh. Haddii aad si daran u xanuunsan tahay, duugis ama qubays baraf ah ayaa wax yar kaa caawin kara soo kabashada. Had iyo jeer dhagayso jidhkaaga, xanuun daran ama joogto ah waa in lagu arkaa dhakhtar. Waa inaad dhakhtar la xiriirtaa haddii murqahaagu aad u xanuunsan yihiin muddo ka badan 7 maalmood. Aad leedahay nabaro muuqda oo muruqa ah. Aad dareento xanuun fiiqan.